barnaamijkeena sidoo kale adiga ka soo qayb gashay sida codsigayga u aqbashay ku soo diray saaxiib iyo walaal dhawaatay wax laga diidi karin oo gambarka looga kaco umada lagu tooro barnaamijkeena bilaabi karnaa aad hadii aan su'aasha markaasi ugu horeysan ka bilaano waa kuma Maxamed Qadar Ibrahim Daahir wallahi dayaxo Maxamed Qadar waa nin sports ah oo arrimaha sportiga aad ugu jecel arrimaha sportiga loogu yimaado waa nin wariye ah oo u go'ay xooga saara jecel inuu markasta ka hadlo arrimaha sportiga howlaha kaliya afaaraha kalena ka fogaada kabaha kalena waa igu weyn yiraahdaa waana nin dhalinyarada sportiga ee Soomaaliyeed meel kasto dal iyo dibad ka joogaana waa nin ku tashto ay garab u yihiin waxa tahay nin Soomaaliyeed aad wax ma noogu sheegi kartaa taariikh nololeedkaaga sida waxbarashadaada halka aad ku soo kortay halka aad ku dhalatay noloshaadii meeshii ugu horeysay aad wax ka soo bilowday iyo halka uu Maxamed Qadar markay soo hor ka yimid aad waa sababaha loogu baahnaa barnaamijkan dayax show waxba kamid ma taqaana aniga moogtahay maalin kasta waxaan ka hadlaa newska dailiga laakiin mararka qaar asxaabteena sabab loogu keenay ma jirtaba anigu halkaas aan ku dhashtay aniga kan waaye aniga kan balowayaan qaab la isku wareysan ma jirin marka barnaamijkan waa loo baahnaa in asxaabtu mararka qaar ay ninka saaxiibkooda ay bartaan aad u fiican tahay personally yo horta anigu waxa la yiraahdaa Maxamed Qadar waa ninkan ku sheegay oo waxaan ku dhashay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe reer Jowhar waxa weeyaan waxa la dhigi jiray adduunyo Jowhar ka joog aakhirna janno waa halka heesan magaalka ku joogna runtii hal heeskaas waan leenahay runtii magaaladaas baan ku dhashay ku soo barbaaray weligay iidan soo joogay waqtigii ugu badnaa marka laga reebo iminka oo hadda dhowr iyo 10 sano ugu dambeeyay Muqdisho shaqadeeda ay noqotay laakiin waa halkan ku dhashay halkaas waxbarashada ku soo dhameeyay runtii dugsiyeedii sare iyo kuwii dhaxaba guud ahaanba marka waa nin meesha ka yimaado aan ahay runtii oo dadkiisana kuna faanaya inuu ka soo jeedo ma taqaana family xoolo dhaqato ah iyo family beeraley ah runtii waa ku faana inta badan moogtaa marka qaar dhalinyarada anigoo ciyaaraha kala hadlay baan dalagii iyo beerihii wixii ugu sheekaya waa soo geliya maalin waxa ugu xiiso badan inaan raaday mar dadka qaar noloshu waxay ka bilaabaan Serie A yani xamar ay ka bilaabayaan Yurub ay aadayaan nolosha Serie C u baahan tahay Serie B u baahan tahay in gobol laga soo bilaabo in tuulo la soo arko howlaha dhan la isku soo arko kadib Yurub ay hadda rabtid marka xagga dadka waxaad leedahay Maxamedow say weeyaan beeraha mise ku soo go'aanad leedahay ila nolosha Serie C ma soo arkin baadiga marka ninkaasaan hayniyo halka ku dhashay runtii waqtigeena uu badnaa halka soo joogay kuna soo waxbartay waan u mahad celinayaa macallimiinteedii wax soo bar runtii abaalkiina waa lama gudi karo sidoo kalena waxaan aad ugu mahad celinayaa waqtigii waxbarashada inay familkii gaar ahaan hooyaday ay garab igu siisay inaan ma taqaan waxaan ahaa waxdiid waxaan yaani ugu yaraan hatta markii dambe luqadda maanta hadda sportiga wax lagu soo diyaariyo luqadda Ingiriiska waa laga yaabo waxaad ogtahay birigi hore inaan leegu kareen laakiin si kastaba oo leegu garaacay ama leegu maanta waa kaga madam xaridaa hooyo ilaahay khayr ha siiyo waxa waa juudigeedii maanta meel uu ka soo baxayo maanta shaqadeedii bay noqotay wax ku diyaariyo aad hooyo abaalkeeda lama gudi karo muslimiinta hooyooyinka Soomaaliyeed ha xafido waa sababta markaas uu leeyahay hooyooyinka garab ha la siiyo waa ogahay taas inaad u hooyo jeceshahay sida waxa noo sheegi kartaa sida ku noqotay wariye ka faaloodo arrimaha ciyaaraha dayaxow wariinimada gaar ahaan sportska waxaan u sii doortay warinimada horta waa jeclaa gaar ahaan sportskan ka sii jeclaa maxay anigu waxaan ka soo jeedaa family sporti yani ku dhex jiray oo taageeri jiray ciyaari jiray haddana dadkii waqtigaas iga waaweynaayo kale iyo dadkii magaalada ugu weynaayo kale ciyaaro aad u xiiseyn jireen annu markaas waxaan sameyn jiray jaraa'idada ka yimaada Muqdisho ayaa waxay ii yaalay books fara badan oo akhriin jiray ciyaaraha marka si aan ugu dhex jiray dadkii ma taqaana familkii sportiga ayaan markaa ciyaarihii la qabsaday waliba hadda sababtan maanta dadka ay ugu jabahadeynayo oo ciyaaraha si fiican oo u maintain gareynayo u joogteena waxay ka dambeysay inaan ahaanin ciyaarahan yani soo daawashadooda iyo soo helitaankooda dhib badan ka soo maray heer waxaa jiri raadiyo laga dhageysto ciyaaraha oo xataa telefishinka wixii ba la haysan marka taaba keentay inaan wariye noqdo waxay ka dambeysay inaan u horto ciyaaruhu jeclaa oo waxaan ku soo barbaaray anigoo soo taageerayay soo daawanayay waa ka okay ma xasuustaa sanadkii kuugu horeeyay ka hadasho warbaahin adigoo markaa ciyaar tabinayo dayaxow marka taas laga hadlo ciyaaraha markaan saas ugu dhex jiray oo aan xiiseyn jiray oo aan ka hadli jiray ayaa waxaa jiray
yar walaalkay ah oo isla idaacadda markaa ka shaqeynayo markaa igu yirinayo waxaan waa mihnadaadii maadniyo gashid then markii dambe shaqadii idaacadeed ayaan bilaabay waad ogtahay shaqooyinka hore lagama helo idaacada markaad nin iska yani dhalinyara tahay oo waa fursad hore ka milis fursadda laakiin anigu markii ugu horeysayba idaacaddu mogtahay waxay leedahay marka qaar idaacad markaad ku biiraysa idaacaddu waa ma aha idaacad sport maahan waa idaacad kulli wax isku ah laakiin qayb sportska ah idaacadda marka inta badan waxaa jirta qofka markuu waxbarashada ugu horeeya yahay idaacadda markood qofka waxaa looga bilaabaa ogeysiis iyo baafin iyo waxyaabaha yaryarka ah ku looga soo bilaabo waana muhiime laakiin markii ugu horeysay idaacad aan fariisto waxyaabahaas kan bilaabo waxaan ka bilaabay waliba barnaamij toos oo live ah agaasimihii idaacadda beriga ilaa nin ma taqaana weyn weeyaane Said Xaga Afrax baa la yiraahdaa runtii yaa wuxuu igu yiri barnaamijka waadna wareerisniyo bal ciyaarahan balgal maanta waana barnaamijku live ah dadka mugta xataa markii waa qofka mugtahay waxaa jira shock microphone jira runtii markuu wariyaha ku cusub yahay oo wixii uu ka qarqarayo laakiin waana laga duubi jiray xataa aniga markii ugu horeysay ciyaaran aqri live aan u aqri soddon daqiiqo daldalmay ciyaarihii mobilkii aan ku soo diyaarsaday marna ma aadan kan waxaan ku dhex jiray wax minadeeda ah waa waxaan jeclaa ah laakiin weligay wixii ugu horeeyay aan ku bilaabay ciyaaray ahayd live aan ku galay waa ka okay markaan kugu horeysay waxa ku bilaabay ciyaar miya wax siyaasad iyo howlo ma ku bilaabin maadaama idaacadda siyaasad wax ka sugu ahayd maadaama aniga aan markii hore waxaan ku dulay idaacadu tagay oo nin qaybtii ciyaaraan idin akhrinaya markaas idaacadan waa idaacada raadiyo Jowhar la yiraahdo wayaan wariyaal weyn ka soo baxay heer BBC heer VOA heer social media still ugu qasban natiijada aan sheegay laakiin labada dhinac waan dhiirigelinay runtii yaani hadhow muugta meelahaas oo kale waxaan nin fawlada iska ilaaliya marka laakiin taasuna waxay ahayd ciyaarta aan ilaabin oo galmudug iyo Puntland ay ciyaareen gobolada marka ciyaaru iska badnaayeen runtii waa asxaabta igu taxana oo runtii soo qaban kara in kuwa in ka badan ay jiraan laakiin kuwa baan soo qaban karaa maadaama wareysigan uu kooban yahay oo aan ilaalinayo waqtiga thank you very much waxaa jira markii Maxamed Qadar ahaan laga hadlayo erayo ku soo kordhisay ciyaaraha Soomaaliya marka tabinist hadii dhowr eray markaas aan ka soo qaadan horta ma shariyadido intaas oo wax kala duwan eray kala duwan maalin ilaahay kana eray cusub keentaa marka waxa kamid hal baan rabaa inaan kugu soo qaado mid walba aan ku soo qaado inaan macnaheeda aan noo sheegtid maadaama aniga dad badan oo ilamida oo na daawanaya ay jeclaan lahayn inay ogaadaan jibaal falow maxaa ka wadaaday aniga ahaan waa aqaan jibaal falow laakiin macnaha adiga aad ula jeedo marka ciyaaraha tabinayso waxaan leedahay markay caawa laba team adag ciyaarayaan marka wax walba waxaan ku miisaamaa